No, really. Non ci vengo. ما بيصورنا يعني. لا أخوان ما بيصورنا. هذيك هو صح. Buonasera.
محمد سعيد حسي عبد الله عكروين فاطمة عمر حاشي يوسف إبراهيم علي محمود سعيد محمد علي حامد خليل موسى سمتر كما علي محمد أحمد عبد السلام حاج محمد عبد الله جامع محمد الشيخ علي منصر محمد علي الشيخ آدم محمد قاني محمد ولد علي فارح نور محمد عبد الصبرية مدام أجندada ay ku dhignaydeen codkana uusan dhamayn meelihii xildhibaanada ay ka soo jeediyeen golaha shacbiga su-aalaad iyo sicid inaan sii wadno oo wixii aan ku kordhinay ama ka dhignay guddiga siiqada marka ay inoo dhan tahay codkii sidii markaa dambe lagu bixin lahaa intaan codda la qaadin guddiga siiqada cabdullahi cabdullaahi waxayna soo abaabushay qolaha ku daro شاء قدومية وحان استاغي arrin socodka shirka saysa dadkuna magaalada jooga ay samada la jiro afartanaya ama marka qaarkood maqan ma suuroobi karto marka siiqada la akhriyo ama yaan la akhrin hadday jirin volontaar ama rabid dadka maqan inuu meesha xaadir ku noqdo waxaad moodaa hawshii la waday oo dhan inay noqonayso hal bacad nuuris sidaa daraaddeed aniga waxay la tahay xeeroosaadka waana samaysteen baan filahayaa dadka maqan sida xeeroosaadka qabo in loo qoro inay yimaadaan goluhuna hubiyo inay gaaraan waraaqu hadday imaan waayaanna waxay la tahay inay golaha la gudboon tahay in la bedelo markeedaasaan ka hadli doonaa sida loo bedela iyadoo aan u arkayno dastuurkaani inuu yahay mid ummadda soomaaliyeed dan u ah waxay noqonaysaa aqlabiyadka ay danta soomaaliyeed u aragto inay hawsha ku wado ayay noqon doontaa iyadoo weliba sharciga u yaala waa fujinaysa waa mahadsanta horena waa loogu qoray dadka qaarkiis waana u xusnay dastuurkii lagu kordhisi lahaa shuruucda dalka ahamiyada macnaha dastuurku leeyahay baa loo badiyey tirada marka anu waxaan qabaa yaynaan inagu ka raacinan xagga ha socotada aynu ulajeedada loo badiyo waxaan rabnay haddii aan maadaama ajeendada ay ku dhignaydeen codkana uusan dhamayn meelihii xildhibaanada ay ka soo jeediyeen golaha shacbiga su-aalaad iyo sicid inaan sii wadno أمام الأنتمية
ayaa ilmo indhahooda ka soo qubatay markii mudane hore oo ka tirsanaa baarlamanka uu tilmaamo ka bixiyey xaaladaha xabsiga ammaankiisa sida aadkaa loo ilaaliyo ee la yidhaahdo community misaanyo imaniyeen oo lagu eedeeyey dacwado la xiriira qoraallo propaganda iyo majixaabina markii dawaadkii la soo dhaafay damiinka lagu sii daayey mister imanyer waxa uu sheegay in qolkeygii lagu hayay qolkaasi oo ku yaala garabka qaybta dadka waalan lagu hayo ee xabsiga magaalada Nairobi wuxuu sheegay in qolkaasi 24 saacadood lagu hayo